بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، maanta taariikhdu tahay 3 bishii 6 ee 2026 anigoo hogaaminayo wafdi 70 qofood ah. waxaan soo gaarnay guriga uu degan yahay siyaasi kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaan u soo gaarnay waxay ahayd inaan islaax sameyno. waxaan u soo gaarnay waxay ahayd inaan nabadeyn sameyno. saacadu markay ahayd 5tii galabnimo waxaan ugu bilaabatay anagoo nabadii ka shaqeynayno dagaal. waxaa soo fadhiyay waa ciidan. hadda saacadu waa 8 saac habeenimo. dagaalkii weli waa uu socdaa. intaas waxaa sii dheer in duqeyn lagu sameynayo odayaashii dhaqanka oo aniga aan hogaaminayo, iyo sidoo kale guddi ka socday dowladda oo ilaa 6 xubnood ka kooban oo hogaaminayo Ugaas Maxamed Cali Ugaas iyo Senator Dhagdheer iyo Degey Geelle iyo Muxudiin Saabay iyo odayaal kale oo khiyaar ah. guddigaasu ayaga laftirkoodu waxay wadeen nabadeyn. waxayna ka yimaadeen mucaaradka intiisa kale ee dowladda. annagoo hal qol ku wada jirno sidoo kale waxaa nala soo dhacay hoobiyaal iyo hub aad u culus. magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay tahay magaalo nabadeed, inay tahay magaalo horumar, inay tahay magaalo ganacsi. runtii uma qurux badno waxa hadda socdo. ugu yaraan 10 saacadood ka badan ayaa waxaa ka socda dagaal. dagaalkaasuna runtii waxaan ognahay dagaal inuu wiil ku dhasho, inuu wiil ku dhinto, wiil uusan ku dhalanaynin. baaqa waxaan u soo jeedinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha dagaalka hogaaminayso. waxaa idin la hadlayo waa odayaashii dhaqanka. runtii waxaad tihiin saraakiishii mustaqbalka. inaad hadda dagaal sameysaan idinma qurux badno. waxaan kaloo baaq u farayaa madaxda dowladda ee ayagana amarka bixinayaan inay joojiyaan oo ay ka waantoobaan. runtii beri waxaad noqonaysaan siyaasiyiin bannaankaad imaanaysaan. hadday dhacdo waxaad u baahan tihiin in ammaan aad heshaan. waxaad u baahan tihiin inaad nabadgelyo heshaan. haddaad maanta ka shaqeysaan inaad wax siyaabo qaldan aad isticmaashaan, adinkuna waxay noqonaysaa beri in sidii liin sameeyo. ma rabno waddankan iyo magaalada Muqdisho in dhibaato lagu sameeyo. dhammaanteen waxaa weynoo saameynaysaa, mustaqbalkeena saameynaysaa. waxaan mar kale ku baaqayaa in hadda dagaal ka socdo oo ay dowladda ay wado, oo annaga hadda aan gurigan ku jirno oo leerkii uu dansan yahay, oo korontadii biyihii laga jartay, oo wadda aan ku baxna xataa naloo diiday, hobiyi lagu garaacayo. odayaashii dhaqanka halkaan ay wada fadhiyaan. waa 70 qofood noloshooda riski ku jirto. guddigii ka socotay dowladda sidoo riskiga ku sugan yihiin. waxaan mar kale baaq soo jeedinayaa in arrintaas laga waantoobo, oo xabadda la joojiyo, oo hoobiyaha la joojiyo. waxaan kelmad u dhaafayaa odayaasha iga dambeeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.